بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين، وصلى اللهم وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أسعد الله صباحكم ومساءكم ولياليكم أينما كنتم وحيثما حررتم. ولا الله سوماليد ملك جوجتان بإله سبحانه وتعالى دكوان ما يلو عدي دبنبك الله كقاضو عدي دن له وفي انت بهن الله دقو انت بكتا الله بكسيو انت دي متى الله ونحرستو والدينتين الله ونحرستا نغان الله نوغا دبا نحرستو دالكا دينتا دادكا iyo dowladnimadaba إله سبحانه وتعالى inoo badbaadiyo. waxaan ka hadlaynaa maanta saddex qodob. qodobka koowaad wasaaradda arrimaha dibadda madaxdeedii ugu sareysay oo dagaal waxaan gacan ka hadal ahayn uu ku dhex maray New York. kelmadan ka waran doona mooshin la wado oo baarlamaanka yaalo xoogan cidda laga wado iyo wuxuu ku saleysan yahayna kelmadan ka waranayna. qodobka saddexaad dagaalkii ka dhaxeeyay koonfur galbeed iyo federaalka oo cirka isku shareeray iyo xogtii ugu dambeysayna kelmadan ka waranayna. qodobka afaraad xilal la magacaabi doono dad laga qaadi doono xilal iyadana waxaan ka waran doonaa kelmad. waa marka koowaade waxaa isugu tagay balcad iyo fiqi New York. fiqi wuxuu ku socday wafdigii rasmiga ahaa ee matalayay dowladda Soomaaliya ee arrimaha dibadda ka socday ee tagay UN-ta ayuu ka mid ahaa hogaaminayay. waxaa hogaaminayay wafdiga ra'iisul wasaaraha Ali Balcad sida la sheegay baasaboor Mareykan ayuu leeyahay isaga iskii u yimid. hadda ka hor waxaan idin sheegnay dhowr qodob oo ku saabsan Ali Balcad. kow inuu Itoobiya u shaqeeyo. labo waxaan sheegnay dhaatadii wasaaradda arrimaha dibadda inuu lunsaday una ku andacooday in la hagareeyay. waad ogtihiin hacking-ka iyo IT-ga iyo fingerprint aan lumi karin buu leeyahay. daqiiqad baa lagu ogaan karaa cidda wax hagaraysay iyo meeshii wax geysay iyo kulligeed. laakiin ujeedadu inta inay ka badan tahay oo dhaatadii la iibsaday kadib markuu masterkiisa isagu gacanta ku dhigay. labada xildhibaan labada wasiir nina waa wasiirkii arrimaha dibadda nina waa wasiiru dawlad. saa ogtiin wasiiru dawlad xil maaha, waa isku xiraha madaxtooyada iyo wasaaradda. laakiin Ali Balcad waa durugsaday, waa xoogsaday maadaama qoys ahaan uu ku milmay isagii reerkiisu ay ku milmeen reerka Xasan Sheekh oo ay isxigsadaan. awoodii reerka ayuu isticmaalaa. ilaahay wuxuu ku mahadsan yahay nin qabaa'ilka kale ah inuusan wasiir ahayn. halka waxaa dhex maray labadaa nin dood iyo dagaal afka ah oo aad u ba'an. ra'iisul wasaaraha isku dayay inuu dhex galo. Ali Balcad waa diiday inuu dhexdhexaadiyo ra'iisul wasaaruhu. kadibna ra'iisul wasaaruhu wuxuu yidhi xamar markaynu ku noqono baan arrintaa ka wada hadlaynaa. maxaa dhacay marka? Ali Balcad wuxuu sameeyey wuxuu la hadlay Turki iyo Ethiopia. wuxuu kala hadlay wada hadalkii iyaga iyo Soomaaliya ka dhaxeeyay. waxaa uga dambeeyay fiqi wuxuu mariyay waa tirtiray burush buu mariyay. wuxuu yidhi xaa kama jiraan ninkaasina naguma matalo arrimahaas. arrinta Soomaaliya iyo Etoobiyana cidaan aniga ahayn ama madaxweynaha ahayn oo lagala xaali karaa ma jirto. hadda ka hor waxaan idiin sheegay Ali Balcad inuu ninka UN-ta u fadhiya Etoobiya uu gurigiisa ugu tegay oo sawir laga qaaday isagoo gurigiisa ka soo baxayo galaya isagoo ay wada socdaan safiirkii laga eriyay Muqdisho ee Ethiopia. Ali Balcad marka Ethiopia ayuu u qareemaa danteedu ka shaqeeyaa. maalintii MOU-ga la saxiixay maalintii ka horeysana wuxuu joogay Addis Ababa. xasan wuxuu noo sheegay inuu la dirirayo Ethiopia. waxaan ku ogaan doonaa Ali Balcad sida uu ula dhaqmo maadaama hadda ay hayaan wasiirka arrimaha dibadda fiqi. wuxuu kaloo la hadlay Ali Balcad A3 nimanka la yiraahdo Algeria, Ghana iyo South Africa isagoo kala hadlay arrinta ATMIS 2024 markay dhammaato dadka bedeli doona, isla markaasna codsaday una campaign garaynaya Masar in dib loo dhigo arrinteeda. waa Ethiopia again. waxaa ka daba hadlay oo uga daba tegay fiqi
oo u sheegay ninkaasi inuusan ku matalin Soomaaliya arrimahaas shuqulna uusan ku lahayn wixii arrimaha ku saabsanna madaxweynaha iyo wasaaradda arrimaha dibadda isagu uu madax ka yahay lagala xiriiri doono meeskaas wasaaradda arrimaha dibadda ka jira waxa ugu wacan oo u dheer aqoonta loo leeyahay arrimaha dibadda oo yar hadda kor waxaa idin sheegay safiirka loo magacaabo Mareykanka Cabdiraxmaan Cabdishakuur baa si babliga wuxuu u sheegay inuu yiri 2 bilood baan waxaan qaadanayay tababar 2 macallin baan qabsaday midna wuxuu i barayay aksanka Ameerikaanka midna wuxuu i barayay siyaasadda waa niman wax xil ah oo dawladeed wali qaban xafiis xataa secretary ka noqon ninka isaga ah baa loo magacaabay wadankii ugu muhiimsanaa oo dalkaaga dan badan kale dana badan kale oo ku dhex jira oo siyaasadda bartanka u fadhiya iyagu maxay soo magacaabeen nin 25 sano veteran ka ahaa ka tirsanaa kamid ah senior level ka gaaray wasaaradda arrimaha dibadda safiir soo noqday si fiican East Africa u yaqaan waxay ugu dareen 1 sano oo tababar ah meesha ninkaan oo aksanka baranayay ninkaas wuxuu baranayay Soomaalida qabaa'ilkeeda say kala yihiin siyaasadahooda waxay isku jecel yihiin waxay isku neceb yihiin labadii is haysaa waxay isku hayso kulli ceeb bay nagu tahay dad aan stage-ka caalamiga nagu matali karin iyo dad saa isaga daba hadlayo oo ninba uu leeyahay kan kale nama matalo inay nagu matalaan stage-ka caalamiga waxaan halkan credit ku siinayaa fiqi oo kaga saxan kana fiican dalkana uga roon qadiyadaas Ethiopia markay timaado balcad iyo in badan oo kamid ah maamulka qodobkaas intaas ka oranaya waa nasiib darrada ku dhacday dalka waxaana mas'uul ka ah Xasan Sheekh waxayna tusaysaa isagu inuusan maamul iyo nidaam iyo siyaasad iyo dawladnimo midna aqoon rabina ama labadaba ama midkood qodobka labaad mooshin adag baa wuxuu yaalaa baarlamaanka waxaa wax ka wada abshiro waxaa kamid ah dadka wada wasiir Isaaq Fanax oo raxan weyna waxaa kamid ah xildhibaan Cabdisamad Macalin Maxamuud oo Cayra waxaa kamid ah Faaiisa Jeyte oo mursada ah waxaa kamid ah xildhibaan Ciid oo xawaadla ah waxaa kamid ah Abdow nin la yiraahdo oo Eyla ah waxaa kamid ah Maxamuud Baafe oo Sheekhaal ah waxaa kamid ah Maxamed Barre wasiir sports Juraan waxaa kamid ah Beene oo isna ah wasiirka qorsheynta iyo wasiir Fartaag intaas waxay mooshin ka keeneen in xilka laga qaado wasiir Fiqi oo wasiirka arrimaha dibadda maxay ku saleeyeen koow waxay dhaheen aflagaado inuu dad badan oo iyaga kamid ah caayay waxay dhaheen wada shaqeyn xumo waxaa kamid ah agaasimayaashii wasaaradda oo uu ka joojiyay saxiixyadii iyo awoodiiba ka qaaday baasaboorkii Soomaalida oo sharafti ka dhacday oo ay ugu dambeysay in Schengen visa ay u diiday Talyaanigu iyadoo matalaysa Schengen-ka oo dhan budgetka safaaradaha la siinayo oo uu ku amray safiirkii lacagtiisa ka qaadanaya marka lacagta ay soo qortaan oo wasaaradda laga soo approve gareeyo la siiyo inay u reebaan 20,000 wasaaradda maadaama lacag la'aan ka jirto wasaaradda sida uu sheegay waxaa kamid ah diblomaasiyiin muhiim u ah wasaaradda arrimaha dibadda oo uu si qaab daran ula dhaqmay isagoo ku eedeynaya inay dawladda farmaajo ka tirsanaayeen waxaa kamid ah eedaha maamul goboleedyada inuu la diriray oo dagaal ku qaaday kulligood ama intooda badan isagoo ka hor istaagay xiriiradii ay la lahaayeen hay'adaha caalamiga ah warqadihii ay u baahnaayeen in loo qoro dib loo dhigay ama lacag la saarayo wixii la mid ah guddiga arrimaha dibadda baarlamaanka oo uu diiday inuu hor yimaado marar badan baarlamaanka guddoonkiisa oo ay dhaheen sharaftu ka qaaday inkastoo aysan ba sharaf badan lahayn xabadda oo ku waafaqsanahay wasiirka waxaa kamid ah wasiir ku-xigeenkii oo isagana saxiixii ka qaaday awoodiina ka dhimay waxaa kamid ah corruption oo ah wasiirku inuu ka furtay xafiis via Roma xafiiskaasoo la yiraahdo tasdiiqinta shahaadooyinka isagoo isbaaro u dhigtay caruurtii yaryarayd ee Soomaaliya iskuuladeeda sare ka soo baxay
una baahnaa shahaado in loo tasdiiqiyo say waxbarasho dibadda ah ama caalamiya u helaan $14 bay wasaaraddu ka qaadi jirtay xafiis uu isagu leeyahay oo halkaa ka furtay xaggaa laga tasdiiqinayaa waxaana lagu soo rogay $54 inay bixiyaan caruurtu arrintaas waa meel ka dhac waa dhaawac weyn waa dhibaato si gaara reer Puntland iyo reer Somaliland waxaa u saaran cadaadis haddaad aragteen wasaaradda waxbarashada waxaa ka furan page-keeda soo apply garee haddaad Somaliland iyo Puntland ka timi ballan qabso ballantii markay damcadeenaa kili garaysa anaa tijaabiyey waxaa lagu leeyahay ballan ma leh waa buuxdaa marka dhib badan baa ka haysta inay isbuuc fadhiyaan iyo ka badan bay ku khasban yihiin ugu yaraan $200 oo laaluushana laga qaadaa ciyaalada ka yimaada Puntland iyo Somaliland arrintaas waa dhaawac waa ceeb waa fadeexad xasan sheekh laga rabo inuu xalliyo waxaa ka mid ah arrimaha ay ku haystaan cilaaqaadkii caalamiga ah oo fool xumaaday aad u baaba'ay waad maqlayseen wadamo la isaga dambaynayo see ku ixtiraamayaan wadamadaas pathetic qof aan waxba kala aqoon goorta u soo dirtid wadankaas see ku ixtiraamaya yacni ceebtu waxay maraysaa meel aan la qiyaasi karin qodobka intaasan ka waranaya qodobka ku xiga ninka agaasimaha ka socdaalka Cabdulqaadir Xaayow oo nin harti abgaala waxaa amar lagu siiyey hal qof oo xildhibaana oo u socda koonfur galbeed inuu sabixi karin maanta waxaa laga soo celiyey Generaal Ciirow oo wiil uu dhalay la yiri dibadda ku dhintay oo u socday tacsiin u aado airportka laga soo celiyey markuu damcay inuu ka hadlo meesha xildhibaanada baarlamaankana group yar oo lacag laga soo siiyey Villa Soomaaliya ayaa buuq ku kiciyay oo diiday inuu hadlo madaxweynuhu wuxuu qalqaalinayay waa dhaweydna uu suuqa soo gashaday xasan sheekh iyo lafta gareen heshiis weeye hadda kor waxaan idin sheegay klibka kii ka horeeyay inay been abuur tahay waa idin ku celinaya wax ka jira ma jiraan haba yaraatee been abuur weeye mana tagayo lafta gareen meel aan xalane ahayn oo aysan dadkoo dhammi joogin sida Dani conditionskii ka mid tahay Dani iyo Axmed Madoobe iyo waa inay joogaan haddii kala tegi maayo waxaa la ii sheegay xasan inuu ka dalbaday arrintii loo diray taliyaha asluubta shubna ay ahayd wixii uu soo dhameeyay ahayd mar inay intay isu yimaadaan uu sawir la galo Muqdisho iyagoo jooga arrintaasi waa fog tahay haddii xildhibaanadii loo diiday inay ka baxaan maxaa diidaya Cabdicasiisna in lagu xanibo meesha waxba oo la xiraba marka ma tagayo waxaa kaloo jirta dacaayad fakatay oo aan ka jawaabayo dowladda federaalka ah baydhabo awood miyay ku leedahay zero eber garoway la mid tahay ciidamo ay leedahay miyaa jooga ciidan ka yar 200 iyo 300 ka yar oo baaba ah baa jooga kulligoodna qabiil ahaan ka soo jeeda reer baydhabo maxay tahay macnaheedu markaa cidi uma joogto xataa guulwada uma joogo wax buuqana kama samayn karaan aan ahayn kii ay iyaan hore sameeyeen oo fargeeti iyo intay abaabuleen ciidamo yar oo lacag la soo siiyay iyagana madaxa laga guray waa dambe lama arag warkooda lamana maqal marka baydhabo maxay ka qaban karaan waxba maxaa uu qorshe ah madaxweynuhu saad aragteen wuxuu dalacsiiyey saraakiil 13 ka mid ah waa beeshiisa hoose Cali Gaaf wuxuu diyaarsaday 560 Cali Gaaf ah wuxuu kaloo diyaarsaday 400 oo nin oo laga yaabo inuu hubeeyo si degdeg oo mursada ah labada qabiil waxaa loo qorsheeyay in lagu weeraro Baraawe oo madaxweynuhu makaaba qabiil baa ma dagaal qabiil iyo dagaal ooga shaqadiisu ma intaas mise dalku xukuma maadaama uusan baydhabo waxba kaga qaadi karin dowladda koonfur galbeed Baraawe waan qabsanayaa maxal bay keenaysaa haddaa xataa Baraawe qabsatay maxal baa keentay mise dalkii baa sii kala qaybsoo kala fogeysay arrintaasi waa dhaawac waa ceeb waa caar dusha ka saaran madaxweyne xasan sheekh maxamuud lagana rabo inuu ka tanaasulo waa uga digayaa dalkaa sii kala fogeyn inta uu hadda joogo kelmadii ninka la yiraahdo madaxweyne hore Hirshabeelle Waare yay kugu dhaboobin dalku sida hadda uu ku socdo gacantu ka baxaya uu yiri yay kugu dhaboobin dalkaa sii kala darin intaa geysatay baan balaga soo waaqsan karin intaa waxa ugu darina dalka u tur xasano qodobka ugu dambeeya waxa xilal laga yaabaa in loo magacaabo
taliyaha booliiska oo loo magacaabi doono Asad Diyaano General Asad berito golaha wasiirada la geyn doono waxa kale oo golaha wasiirada laga yaabaa in laga magacaabo wasiir ku xigeen loo magacaabo taliyaha hadda booliiska jooga Sulub oo laga yaabaa in laga dhigo ama taliyaha ku xigeenka gaadiidka ama kan amniga oo ninkii dafacalla oo halkaas kaga baxo kursigiisa ku waayo reerkaas oo dhan halka kursi bay ku leeyihiin xildhibaan iyo cid kale toona iyo maamul waxa laga yaabaa agaasimaha socdaalka in la magacaabo hadda waxa ku fadhiya Axmed Saciid oo cayr ah laga qaado nin kale loo dhiibo waxa la magacaabi doonaa sida la sheegay xogaha joogtada arrimaha dibadda Xaadoole ayaa hadda fadhiya isagana qof kale loo dhiibi doonaa statistics-ka qaranka hay'adaas oo wasaaradda qorsheynta hoos tagta buuqna ka dhacayaan hore ayna ku dirireen wasiirka oo meela beene iyo saddex nin oo midna yahay wasiiru dawlaha jire midna uu yahay wasiir ku xigeenka Maxaa Cabduqaadir oo madaxweynuhu sodog u yahay gabadhiisa qaba gabadha xaaskiisa